فيديو أنا كعدو ما من سنة أديك سي هذه يقدوه هذه ما هذه أيانا ميدا كويدينا ما باي هاي ما له كمية كتا ما يدينا أيام فير يعني أنت موت قلب لي يعني أنت موت قلب يعني تموت قال ولا أديك قبل فيديو ويقدو بتاتري فيديو مخدش أمورك ayaan misunderstand jir ida maalinta guurguuraysa TikTok maxaa ka socdo waa ogeedeen sawiraantiisa asaas loo waday maya bas laga raba way iga duubtay iyo igama duubin intii aan ku sheegay reason kale isku haysta idin sheega ma idinka marba mid su'aalaysay حبي بالعامس ولا على فيديو ما لقى دوبي قبل ما كان دوبتها reason ko waxa way ayaan ani wax video igama duubin ani idana misunderstanding baa noo dhaxeeyo isfahan la'aan ma fahanti إنا ما أركنه قفبق لنعيس حناق كوسنوي ما فهمت. سو أدي وحوا إذا كحمينيس هذا القسم كديس. إذا أنا مو حمينس أنا إذا مو حمينة لكن سوحة أنا فاهمة إلى فاهمة. محاوحة فهمت. وحة أنا فاهمة وحة تجودان وحس كده دعسي إنا إذا أنا فيديو سمعت كسودوا إنا إذا كوذي ما فهمت أنا إذا كوذي. فيديو قاونوا الناس كعنق أسيسنا يسيو ضرب. ما بدوين بإنا عنق وذن إذا وجد ما بدوين. هذا كاس أنا صور شيء جاي هذه ملقاها. Exactly that's why because أنا إذا ما بكوذي هذا سامع. فير ولا عليه دقيسو. وحكم فيوسا كدقين كبدان فيديو يقدو بتاتر صح؟ إذا فيديو إذا ما تدوين فيديو بس إذا كمود إذا قلت إذا فهمتي أو إسلام مركي لايف سوفر يستو أنا وحيرت إذا شكتي ما فهمت because أنا أنت 3 minutes أبو فيديو سجل دعوني وانوجيناي هذا أنا نايا أيام وجفوع أيام بلن وحتى ناقنا هابد بعتهاي ما فهمتي نايا قبل مساكين تامرك أكو دجنيسي أنتاس معلم بعقبل أن أنت سوي قاعد دبعت كويسي أيضا حاملة وأركاي تيك توك ميل والبال وذي جروبية waxaan ku dhahay shibac iska dhahay waxaan dhahay gabdhaha waxa waay sheedaan baa soo kala dhixgali karo iska daa sheekadaad waaba ka darta wallahi fa soo kortay nahabnimadan iyo beentan waa tii lagu ogaay gurigaaga hore u dumis ya dhibaatadana waa la soo wada maranay adiba dib waa soo martay marka social media soo galaysa waa ogeed sida u tiil ya maanta ayaanita si u tiil si ka si foolxun ada u taalo oo ma aragtay anjeero ilmaha u dubanayst social media soo gasho ma fahanti oo waliba nahabnimo inta ku gaartay odagaagii oo ilmihii hore ka dhalay oo beenta maalin walba naxdin ayaan bilan oo xeeta odageeda kala tageen naxdin ak soo qori jirto oo xasuusta janalkaaga lacag yar waxa waaye oo familkaaga iyo tolkaaga ku aruuriyeen oo business ku bilaawday markay ku kala kacdeen ogeed odagaagii oo nolosha isla soo bilaawdeen dabada fargashaa tiri waxa ka tagtay mid kale oo sanbaco sida adigoo kale taa dudata iska wada kaaga waa kuugu faraxsaneen adiga hadii aad ku faraxsan tahay maalin been baa u soo ooyi jirtay wiilkii waxa waaye ilmihii ka dhalay been maalin walba waxa dhigi jirtay gabdho badan lagu nacaysaan waa maxaa gabdhaha badan lagu nacma ilaahay ka cabsatid sida naag 10 gabdhood amal dhashay oo kulaata gabdho badan lagu nacay walaashiisaasaan isoo dhahday naagtan nahabnimadan iyo beentan weligeed ee social media ku heys Soomaalidana intay aragtay ee fiirsay ka tagi jirto maanta marka inay gabadhan masaakiinta ay dhibaataysan ee dhibaatada kula digata taas ma ahan mid loogu dul qaadanayo ma ahan mid loogu dul qaadan karo ama loogu dul qaadanayo dad waxay soo dhigi doonaan ha maxaa adiga waxa waaye ka galay adiga runtii waxa adiga ka galay anigana iga galay ma fahanti gabadhan masaakiinta oo dhibaataysan oo xaamilada in lagu digto ya hadii ilaahay ma aragto oo naaya nimco ku siiyay nimcadaada waa inaad qarsato alxamdulillah dhahdaa gabar walaasha ah ina maanta dhan ku kor digato ku kor wareegto munaafiqnimadaada iyo beentaadina waxa waaye ilaahay baa runtii ka soo dilaaciyay ayadoon lagu ogeyn marka live ka soo gashay saa u tirtirayso arkiis aad dhigaysid ha maya waxa lagu weydiin orta qofka markay been sheegayso waxa lagu yaqaanaa wax aan la weydiin ay ka hadlaysaa ya ayaan xasan ma waxay biskoolada madaxa kaagiis waa maya xaq ayaa dilaacay markii ay ku dhahday saan ma ku dhahday de ma sheegi kartid wax been waxa waaye luga ma leh been waxa la dhahay raad ma laha la dhahay been raad ma laha la dhahay beenta si doonta u soo dhuubto waxa waaye ma sii soconayso ma fahanteen
marka waxaa waaye gabadha walaasheen ayaaniito waxaan leenahay abbaay horto isdeji nabigaaga ku sali alxamdulilah alshukrulah dheh soomaali way kula duubata way kula danqata maanta wax kaa halaysan ma lahan mar dambe ha usoo jawaabin waxaas luxuushka ah ya qofka fuliga waxaa lagu yaqaanaa la dadka masaakiinta ah oo tabarka daran iyo naagaha umusha iyo oo la dagaalaa qofka fuliga ah marka tan fuleyda oo fuucsan oo waxa feega umada ay ku dhibaateynaysay ka gidaysay maalin walba inta isku bararisay gabadhaas masaakiinta maaragtay isku soo taagayso waxaan anaga leenahay walaasheen ayaaniita abaa iska sabar adduunyo waa waxaan dhibaatadana qof aan soo marin ma jirto kaligaa ma ku jirtid waxaa waa dad baa kugula jiro ilaahayna maaragtay inta dhib haysta ha kaga dulqaado geelaha laba jirka waa soo maray iyadoo way soo martay nabadna allah kugu kala keeno stresska faraha badan iska daay waa wax walba u nugushahay xaamilaha tahay dhiikarihi kugu ridin naagtan nahaabnimadeeda iyo beenteeda soomaalidu way ka dheragtay wayna og tahay waxaan ku leenahay walaashay iska sabar iska dulqaado hal hadal aad tiri ani aan ka xumaaday ayaaniita oo ahay inaa odagaagii macnaha wixii idin dhex maray aa ka sheegtay oo ahayd macnaha saanu yiri waxaas wax wanaagsan ma ahan arintaas iska daa dagaal oo naag aa isdagaasheen ha kusoo dhexl faaqan odagaag haddii aa isdagaasheenna maxaa waaye dee carab ilko waxaa la wax iskaga dhow ma leh waana isqoomaan haddii aa kala tegaysiina sharaf ku kala taga ilmaha idinka dhexeeyo ma ahan inaa wax idin soo dhex maray aa social media aa keentid taas ayaan aniga aan u arkay inaa maxoogaa yar aan kugu dhaliilayaa taasna waxaa qiil loogu raadinayaa qof xanaaqsan baad ayadoo xaamilaa laakiin hadda ka bacdi insha allah qaladkaas yuu kaa dhicin gabadhan kale kuu soo hartay gabar maba ahana islaantan kale oo gabadha masaakiinta maaragtay isku soo taagtaagayso gabadhaas walaasha dhaaf walaalay ilaahay ka cabso ma fahantay annaga dad noloshaadana xaasid ku ah manihin soomaaliya igu soo jeediseen saan waay waa ku jirtaa noloshaada walaalay xaasid ku manihin nimcad ilaahay ku siiyo allah kuu saa'idsho annagana allah noo saa'idsho waxaan haysanan rabbi hana siiyo adna allah ku siiyo waxaa waaye walaashay ilaahay ka baq gabadhaas walaashaa ah oo masaakiinta ah ha ku digan waxa aad shalay isxaan ugu samaysan ha ku abaal sheeganin adiba dad badan baa isxaan kuu sameeyay Soomaali Maxamed dhan baa isxaan kuu sameeyay kuu kacday kuumana abaal sheegato ha ku abaal sheegan oo fi sibillah ha ugu sameysay ha naqdaano waxaan leenahay walaasheen ayaaniita hore u soco ilmahaaga ilaahay nabad ma aragtay afrin dhoodo isjecel Allah ka dhigo waxaan ku dhahay awlaadaada kale tan Allah ku dhaafo noloshaada waxaan ku dhahay hore u soco gadaal waliga ha fiirnaan ku leeyahay hore u soco walaashay qaali iskana cafi qalad maadaama ay ka gasho oo wada jeedno iska cafi waa iskaga cafinay sababta ay tahay waxa waa ina iska cafis adeedan kuugu jirtaa adiga ku caafimaadaysid ilaahay nuuca waaye wuxuu agtiisa ku taalaa bedel qeyr qaba ilaahay ku siinaa ma fahanti marka insha Allah taala saasayaan ku rajeenaa walaashay iyo horumar wacan qeyr badan ku rajeenaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta ku xiran isku filan laaga laga soo dhisa asxaabay laaga iga soo dhisa muuqaalka midig ama bidix soo koraayana noo daawade noona laag gareey muuqaalkan sii sheer gareey meel walba ku sheer gareey